ورسك إلى إلهي أدرتي سأسكوي دي سنيسان حقه وبالله أدلده وحا إسيقفكي يحق قرابة أيلاد الرحم كأوليه قاركين قارك كلايتو إلهي بأسكوي دي سنية مركي الرحم ليرهدنا وأقربة ويان oo markaasi aanan xaq u lahayn in marnaba la gooyo waxa ku badan mujtamaca qaraabo goyska ku badan mujtamaca Soomaaliga waxaan xariista Ilaahay uga qaadayna waa taa weeyaan la qarabatu almar'a nahririnin wala qarabatu alabti nahririnin wala qaraba kalatu nahririnin wala wuxuu cid ku leeyahay wala qarabahu yuusan xiriirinin marka waa mid halaag keentay mid aniga iiga baahan inaan fasirana maaha waa mid rag iyo dumarba maanta la og yahay oo maanta meeshay gaarta la garanay yaani illan wala dhimma inaanay dhawrinin ayaa ka muuqda meeshaasi ilaahayna ciqaabkeedii uu ku dhaftay subhanahu wa ta'ala sidii dab dhagax lagu dhaftay ayuu ka dhigay feen firirtay Soomaali dambiga ay ku galeen dartood ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل dadka in la xariiriyo ilaahay oo amray waxa kamida dadka silatul arham haday eeda tahay haday habar yar tahay haday ayeeye tahay haday mid kala tahay in la xariiriyo ilaahay amray subhanahu wa ta'ala marka waxyaalaha dadku ay jannada ku mutaystaan kamid yahay walladina yasuluna ma amara Allah bihi an yusal ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى ورجال الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم في سورة النساء marka dadkaas oo dhan xuquuqdooda in loo ilaaliyo ayay doonayaan xadiidkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee muttafaqa ahaa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyasil rahimahu ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid dheer weeyaan إلهي مركو أبوري خلقك إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة مركو إلهي خلقك أبورو كونك أو أبوري أي الرحم كإستاقي ماشي أنا وماشي أو كم مجنجل تشري قفكي ما أنت مركز على حريرين أما قفكي كم مجنجل يعدك كاهوس قال إن لجويه أو لورد مايو إلهي وحيري نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ميادن رالكو أهين إن حريري يقفك حريرية أنا نقو يقفك قوية أدك قالت بلى قال فذلك لك كاسا كوسو نادي قفك قوية إن نقويون نحرستي دي كئريو قفك حريريا أنا نحرستون نحرستي دي أنسيو كم من قطيعة الرحم ماذا قطيعة الرحم أياتها لما انتيتو عد ولا حرج ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم حديث كمسلم يا بخاري يا إسلوري رواية كالتو بخاري أوليه هي إلهي وحويري من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته فهمك أول لقويو يكجيس شذا أيها حق وذا لقى جيستو وأن لسو زيارنين أما أن الله كالمينين معاملة ذا وأن لوراجنين كل جود وحكينا يسا جهنم أي يواجبني سارنتي dadka saqaaribta ah u baahan ama ha ka yimaadeen dhinaca hooyo ama dhinaca aabaha ka yimaadeen ama dhinaca maanta ahalkaaga ha ka yimaadeen qofkii inuu xariiriyo ayaa korkiisa waajib ku noqotay waxa aan doonayaa kolka hadii taas ay tahay hooyo marada saalixada oo ay tahay gabadh marada saalixada oo ay tahay eedo marada saalixada oo ay tahay habar yar gabadha saalixada oo ay tahay xaas gabadha saalixada iyo dowrka ay ku leedahay mujtamaca had iyo jeeraale waxyaalaha lala dul wareega waxaa ka mid ah dad badanna ay qalad ka fahmeen inay noqdaan ducaatun ala abwaab jahannam wa ducaatun yukhrijuna almar'ata min baytiha aw inay noqdaan mughaffalin
يظلمون المرأة ولا يقرون لها الحق. waa laba mushkiladood wey. qaar badan oo dadka maanta jooga ka mida waxay odhanayaan maya waa in gabadhii guriga laga saaro oo lagu daydo reer galbeed ama reer gaal in lagu daydo, ilmihii la dayaco, gurigii la burburiyo, xuquuqdii lagu tunto, waxba aan loo aaba yeelinin, oo la sameeyo kulli waxa ay samaynayaan kufaarta oo kale. hada dalaal. qaar kale oo badan oo muslimiintii ka mid ah maanay fahminin ayadoo oo hooyo ah, ayadoo oo gabadh ah, ayadoo eedaa, ayadoo habaryara, ayadoo xaasa inay xuquuq leedahay oo ay saalixo tahay, laakiin haddana xuquuq ay leedahay, xuquuqdaasna ay ka mid tahay inay shaqaydo, inay wax barato, inay samaydo, inay xaq u leedahay. oo kolkaa qaar badani kolkaa ay ka soo qaadeen wixii oo idil waxaan waxba ka jirinin ee la yidhi laa tataxarrakii wa kilaahumaa dulm. xataa ay qaarkood gaareen ay garan waayeen gabadhaani xataa diinta islaamka inay barato xaq bay u leedahay. dulmiga lagu soo samaynaya waxaa ka mid ah markii dugsiyada qur-aankana la geynayay, ilaa man raxima rabbi, qof oo alla u naxariista moogey, mid inanta u dhala dugsiga qur-aan geynaya ma laha, mid eedadii qur-aanka baraya ma laha, mid habaryarti baraya ma laha, mid hooyadii baraya ma laha, mid xaaskiisii baraya ma laha. waxaa laga yaaba mid walbaa inuu yidhaahdo oo maxaa dee waa sidan ba iska ahayd, wiilashan baa dugsiga qur-aanka loo diraya. yaa allah, wayna xaq albanad, yaa allah, wayna xaq almar'a, wayna xaq alum, wayna xaq alkhaala, wayna xaq alcamma. ليه؟ لأنهم ما يفهمون. نبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه. أولا waa lagama maarmaan markuu wax idnaya waa markuu xuquuqda kala garanayo, waxay xaqa u leedahay in loo idno ay mudan tahay iyo waxa kale oo kala garanayo wey. laakiin hal dhagax oo meel iska fadhiya maya, sidanadoo kale. fain facalat marka hadday iska baxdo kolkaa lacanaha allahu wamalaa'ikatu alraxma wamalaa'ikatu alghadab xataa tatuub aw tarjica buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. hadday iska baxdo marka idan la'aan iska dhaqaaqdo, ilaahay baa lacnadaya, malaa'igta naxariistaan lacnadaysa, malaa'igta carada ilaahay baa lacnadaysa ilaa ay ka soo toobad keento ama ay ka soo noqoto gurigeeda uga soo noqoto. qaalat yaa rasuula allahi wain kaana daaliman laha, haba dulmiyo asagu kii ka gardaran ha ahaadee ma sidaasa? qaala wain kaana daaliman laha. yani imaamu nawowi fi lmajmuuc, kitaabka majmuuc ayuu ku wariyey xadiidkaas. haddii gabadha muslimadda marka ay baxdo ayadoo rabto masaa'ilka diinigaah sharcigaa inay barato, sidaad iminka u fadhidaan oo kale, oo umuurteeda diinigaah muhiimka inay ogaato doonaysa, oo caqiidadii inay barato rabta, oo doonaysa salaaddii inay fahamto, oo doonaysa soomkii inay qaadato fahamto, wuxuu ku buriyey wuxuu ku ansaxayey, salaaddii waxay ku buriyday waxay ku ansaxayday, xajkii acmaashiisii inay barata ay lagama maarmaan tahay, zakadii inay barata ay lagama maarmaan tahay, yani inay weysadeedii wixii ku ansaxay wixii ku burinayay in barata lagama maarmaan tahay. can alxayd waannifaas, inay ogaato xaydkii ku imaanayay iyo nifaaskii ku imaanayay inay barato, wixii xajka ka burinayay, wax alla wixii ku tacalluq iyada nolosheedii, janaabadii iyo qubayskeedii iyo wixii la socday kulligood inay barato. waa umuur diiniya sharciya, sharciga islaamku wuu oggolaanaya kolkaa. haddii marka zawjkeedu uu noqdo nin kari kara oo bari kara fa biha wa nicma, oo uu u jawaabi karo. haddaanu u jawaabi karinin waa inuu asaga u soo jawaab keenaa, u soo aruuriyaa wax alla waxay u baahan tahay si waadixa oo ku filan.
haddaanu kari karin oonu una su'aal tegi karinin barina karin asagu waa inuu u ogolaadaa inay baxdo wayna bixe iyadoon asaga ka idan qaadanin shariicada islaamku waa sidaa weeye maxaa yeelay inay barataahi xaqa iyo diinta inay barataahi waajib ku tahay mulzam oo mukallaf weeye haddii aanu marka ka kaafin inuusan u ogolaanin inay khilaaftay baxdaahi xaq bay u leedahay biduun idni minha waa lagama maarmaan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inay cilmiga diinta islaamka wuxuu ku saabsan barataahi waa waajib weeye hadduu damco inuu ka reebo inay ku khilaafto xaqay u leedahay idankiisana markaas looma baahna sida culamada